السلام عليكم. سودوا هذا ولا ليال سودوا هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله اللي يسودوا هذا دمانتين بايدين سلامة يا دمان ومد الصومالي ملك استوى جوكتان أما لي يسودوا وباي معان سودوا هذا دمانتين إن وحكى المسوق الوحى ربنا لإنان هالكان قطع سيايو إن ويلك ولا الكينها يدل يردها يرى محيطي إن asagoo qaxooti ku koray oo meel qaxooti ku dhashay oo qaxooti ku koray wadankiisa wiligiis arkinin haddana markuu wax bartay u noqday wadankiisa oo maanta inta lagu toogtay madaxtooyada horteeda wallahi waa calool xumo waa niyad xumo laakiin kulli qofna maantiisa ma dhaafo waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto jannatul firdaws ha ugu bishaareeyo ilaahina waxaan ka baryeynaa in waaridkiis waxa la ii sheegay taariikhda in hooyadiis ay wiilkaas rafaad iyo silciis xariir badan ay qaxootiyada ku koriyeen ilmaha asaga iyo walaalihiisba markuu asagii garaadsaday oo isu dhahay waxbaad u qaban kartaa alla ilaahay waxaad qaban kartaa wadankaaga u celina waxa weeyaan waka wadankiisii hooyo ayaa lagu toogtay oo asagoo waxba geysan oo ilmo yar oo dhalinyaro ah oo soo kacayo ubaxii wadanka ah aayihii mustaqbalka wadanka ah ayaa lagu toogtay waa very sad waa calool xumo wallahi waa calool xumo waxaanan isleeyahay anigu aan ku fikiraa marmarka qaarkood Soomaaliya waxa la rabaa dhalinyarada in laga dhameeyo waxa la rabaa wax garadka in laga dhameeyo waxa la rabaa inta aqli saaxiibka uu aho dhan in laga dhameeyo midkii aqli la waa la xiranayaa kii aqli la waa la tooganayaa kii wax garada waa la dilayaa qaar sun iyo saxariir baa la siiyay qaar badda lagu dhameeyay waxaas oo dhan waxa ka dambeeya waa arrin adag baa ka dambaysa oo laakiin aan la fahansanayn arrin aad u weyn baa ka dambaysa waxa ka dambeeya waxa dhalinyarada garaadka aad baan ku salaamayaa aad iyo aad soo dhawow basra soo dhawow dhamaantii soo dhawaada waxaan isleeyahay waxa ka dambeeya oo wiilkaas dhalinyarada amaanta iyo madaxtooyada horteeda loogu toogtay waxa la rabaa dhalinyaro dhan wadanka in laga dhameeyo mid la xira iyo mid maxay la dilo iyo mid badda lagu qaxiyo marka wadanka cidla markuu ku soo dhacana qolo ay hantido wixii dilay anagu waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya oo aanu aadka ugu hanweyn ka nahay oo aanu supportiga u nahay oo aanu sanadkan waliga anagu dawladda support gareynin aanu hanka balaaran ka qabno waxaan leeyahay wixii wiilka yarka ah dhalinyarada ah ee maxay wadaniga ahaa ee maxay wixii yaraayo u bartay oo uu Kenya ku bartay iyo qaxooyinteeda ku bartay u celiyay wadankiisii si uu uga faa'iideeyo qoladii dishay waxaan codsaynaa horta in tiirka la soo saaro wax la yiraahdo accident waa jira laakiin accident oo qof dhan oo gaari wata 10 xabadood nafta looga qaado lagu dhufto anagu ma aaminsanin waana seed wallahi waa seed waxaan halkaan uga tacsiyeenayaa hooyadiis wallahi hooyadiis iyo walaalihiis waa la iiga sheekay waliba hooyada ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ku booyo dhayaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala qalbigaaga ha ku adkeeyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala badal khayr qaba ha kaaga dhigo kuwa ku jooga samri iimaan ha ka siiyo because hooyo say dareemaysa maanta aan waan dareemayaa hooyo baan ahay hooyo maanta indhaha markuu wiilkeed u kala furay istiri alla ilaahay wadankiisii hooyo ayuu maanta ma taqaana una shaqeynaya waxna u taraya adigiina wiilkaaga maanta meelba ku maray ayadoo qaxooti ku korisay oo rafaad ku korisay oo maxay kaligeed u carcaraysay oo silac iyo saxariir xeeradii qaxootiga la yiri waxay ku gadi jirtay marba wax yar bay gadi jirtay si ay ku koriso maantana wiilkeedii lagu toogtay wadankiisii dhulkiisii hooyo ciidiisii hooyo oo ay mataqaana ay qaxootiga ku soo korisay haddana wadankiisii lagu aaso lagu dilo oo xabada dharrag oo dhaco by accident bay ahayd anagu by accident dawla yeelmayno dawla ninka dhalinyarada ah oo la dilay oo maxay ta ubaxii u soo kacay Soomaali awal baa hore loo dhameeyay waxaan codsanaynaa wax la yaqaan oo cad oo dawladda Soomaaliya lagu aamino inaan aragno because waxa weeyaan tani waxa weeyaan
haddii ay saa u bilaabatay maalin walba dhalinyarada yarku hadda dowladda gashay ayaa la dhammaynayaa mana yeeli karna taa waxaan leeyahay marka insha allah bilmillahi karim message-kaygaas dad badan kuma jiro oo ujeedaa laakiin gudbiya walaalayaal tuura idinkana meelahaas sii tago waxaan codsanaynaa wiilkaas arrintiisa inay noqoto arrin cad oo la yaqaano si aan ilmo dhalinyaro dambe oo dowladda ka qayb gashay ama qof wadani ah oo dadkiisa dalkiisa u maxay tahay halgamayay aan dheeldheel loogu dilinin oo aan loo dhihinin oo accident bay ahayd accidentka ilaahay wuu keenaa ilaahay subxaanahu watacaala maalintuu kugu talgalay waad dhimanaysaa laakiin si dowladdan ay dowladihii kale uga different uga noqoto ama uga bedelnaato waa inaan tarasgaraynaa waa inaan aaminaa in dadkeeni safe yihiin maalin walba qarxiskii hadda wuu badnaa haddana hadda la shuudgareeyo dhalinyaradii soo kacda ubaxa ahayd oo waddanka maskaxda iyo caqliga iyo aayaha u haysay la shuudgareeyo waa calolxumo xun weeyaan waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala qabrigiisa ha u nuuriyo ilaahay waxaan ka baryaynaa reerkiisa iyo eheladiisana inuu samir iyo iimaan ka siiyo hooyadiisiiba ilaahay waxaan ka baryayaa inuu qalbigeeda u adkeeyo ilaahay subxaanahu watacaala qalbigeeda inuu u adkeeyo nin dhalinyaro oo hadda soo kacayo first babygii markuu u dhashay maxay tahay wadankii uu islaha waxbaad ku kordhinaysaa waad u dadaalaysaa u halgamaya oo u jeclaa harcad in lagu toogto madaxtooyada horteeda oo caan oo xataa aan ahayn luqluq iyo qof la raasada iyo meel kale iyo dad caysaday aan ahayn waxaan yeeli karna waxaan qaadan karna ma aha laakiin ilaahay wuxuu keeno lama diidaayo amarka alle waa la ogol yahay laakiin waa in la helaa wax cad waa in dowladda war cad uu ka soo baxaa waxaan ka codsanaynaa dowladda madaxweynaheena mudane farmaajo iyo maxay tahay mudane khayre inay sheekadan meel saaraan because haddii kale dhalinyarada soomaaliyeed ee dowladda sanadkaa ku badan oo dhan baa la dilayaa haddana dhalinyarada soomaaliyeed oo weli wadankii niyadda ku haysa wadaniga ah ayaa la dilayaa waxay noqonaysaa wadanka in laga dhameeyo dhalinyarada sidii horeyba loogaga dhameeyayo oo maxay tahay qaarna badaha loogu guray qaarna jeelasha loogu guray haddeertaana nin haliyaya naga xiran yahay oo jeelasha ku jira oo no reason la isaga xirtay haddana waxa meesha ka socda waxa weeyaan ninkii dhaqaaqaya ama caqli leh ama idea leh ama fikrad leh in maxay tahay jeelka la dhigo marka taas wax la qaadan kara ma aha waxaan ka codsanayaa dowladda iyo maxay tahay intii waxgaradaba maanta in sheekadan meel cad la saaro oo adduunka dhan aan ka daawano wiilkaas si koo dhalinyarada ah oo wasiirka oo hadda soo kacay oo u bixiyay maskaxdii waddanka ahaa wixii dilay iyo wixii ka dambeeyay investigation fiican intii la sameeyo waa in maxay tahay dadku ku qancaan waalidkiis iyo eheladiis iyo ummadii maxay tahay wiilkaas uu u ahaa dee role modelka dhalinyaro badan baa ku haminaysa dibadaha inay ka tagaan dhalinyaro badan ba oon waddankaba ku dhalan ayaa rabtay waddankooda u noqdaan maanta waxay tahay qalbi jab waxay tahay niyad xumo markii qofkii xoogaa caqli lahaa ama dhaqaaqayay xabad dhush lagu siiyo oo by accident wax ka dambeeya anagu ma ogin ma sheeyaa ka dambeeya ma sokeeyaa ka dambeeya ma Soomaali baa weligood ayaga asbaabinayo xabadii ka dhaqaaqaysa dilaysay ma Soomaali baa haddana dilayso qofkii halkii qof oo ka dhaqaaqay waa wax la yaab leh laakiin sheekada waxaan ka codsanaynaa dowladdan anagu dowlad strong yahan u haysanaa dowlad waxaan u haysanaa aan aaminsanahay inay dalka iyo dadka danta iyo diinta inay tahay sheekadoodu waxaan aaminsanahay dalka iyo dadka iyo diinta inaad ku dhaqaaqaysaan ciwaankiinii hore sheekadan wiilkan yarka wasiirka ah waxaan codsanaynaa mudane madaxweyne iyo mudane maxay tahay khayre waxaan isku codsanaynaa ra'iisul wasaarow inaad weliba adiga way xoogga dalka iyo ciidamka meel walba ra'iisul wasaaruhu waa inuu meel saaro sheekada waa in sheekadan si cad oo xaqiiqo oo adduunyada dhan laga daawado si aan mar dambe aan accident saas u dhicinin accident si una mar dambe u dhicin ama dhalinyarada aan loo ugaaranin because waxa la ugaaranayo oo la baabi'inayo oo Soomaaliya dhan ay ku baaba'santo 27 ku baaba'sanay years waxa weeyaan dhalinyaradii baa la baabiyay kii wax garada dhush kii caqli la dhush kii maxay tahay madaxa la soo kaco niyada ay kaga jirto ciidiisii hooyo bush ma sheekadan ma socon karto sheekadan hal daba qabto oo Soomaali hal is daba qabto madaxduna hana daba qabtaan because madaxdu waa inay xoog saaraan in ay maxay tahay dhibaatada wadankii haysata iyo dadkii haysata iyo dhibaatadan ma taqaana mar walba dadka loo dilay waliba loo ugaaranayo dadkii waxtarka ahaa ama dadkii qiimaha lahaa waa in meel la saaraa dhalinyaro badan baa sanadkan dowladda ku jirta oo maxay tahay ra'iisul wasaaruhu ku jiro oo madaxweynuhu ku jiro oo dhalinyaro yar oo kale tahay ku jirta ma rabna dhush in la dhaho accident awla dadkeena accident u dhamaadeen iyo bad iyo berri iyo maxay tahay beerarka lagala baxay meel walba silacay ku dhamaadeen sheekadan waxaan leeyahay meel ha la saaro familiga wiilkaas hooyadii silciisa xariir wallahi xalayto waan ooyay wiil saaxiibkiisa Allah hadla wallahi wuxuu ugu dhahay silciisa xariir bay baamadaas ilmaha ku korsatay hooyo aan la heli karin oo qaali ah
oo boqol karoon ah oo dumartii ugu fiicnayda ayaa dhashay hooyo kastana waa fiican tahay siday ku korisay ilmaheeda ay wax ku baratayna waa la iiga sheekeeyey maantana dhulkiisii hooyo ayuu intuu aaday wuxuu yiri alla ilaahay wixii aan bartay waxaan ku saayidinaya oo u diraya oo wuxuu ku qabanaya waddankaygii hooyo waxaa loogu jawaaba bas intii lagu furay in la dhaho oh it was accidentka anagu ma diidanin allah wuxuu keeno subxaana watacaala maalinta tiisi aan ahayn maalin ahayna ma dhimanayo laakiin sheekadan accidentka xamar ka socota way badatay accidentka xamar ka socota malakamoodkii ka soo hormartay hanala ka qabto malakamoodkii waa ka soo hormartay sheekada xamar ka socoto waxa waaye without no reason humanity dhanaa ka dhamaaday waxa ka dhamaaday bini'aadnimadii dhan waxa ka dhamaaday dadkiiba inay yihiin neefka iyo maxay tahay iyo warqadda iyo dadka ajiibsan oo minisraqiisa oo naftii macna ma laha qof dhan oo mutacallina oo yaro soo kacay oo ubaxa oo life dhan ka horeeyay ba 5 xabadood ugu dhuftay waxa la OTC ya gashay tiisi way gashay laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri dadaala waa idin la jiraaya haddaan dadaalno oo aan wanaaga ku dadaalno oo aan qiimeeyno nafta ilaahay bil aadanka uu galiyay inay qaali tahay ta ilaahay waa nala dabageliya walaalayaal ilaahay waa nagu garabgelaya wanaagana uuna faraya uuna gaarsiinaya ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa wanaaga haddaan ka raadino wixii wanaaga ah waa helaynaa laakiin ma ahan macquul ma aha in ma habeen walba qof qoorta laga jiro habeen walba kii dhaqaaqay la dilo kii caqliga la soo kac la toogto intii plan loo dhigo bush lagu sii oo dhaco it was accident haddana aan dhahno oo amar ilaahay waaye amarka ilaahay waa imaadaa laakiin amarka ilaahay nafta qiimaheeda meel kasta adduunka meel kasta dadka jooga humanity-ga ayay garanayaan nafta qiimaheeda ayay garanayaan qofka dhintay inuu bil iskeersa ilaahay maalintu ka haysto ka hor inuuna u dhiban bay garanayaan laakiin annaga waxay noqotay dadkeena kii dhaqaaqayba qoorta in laga jaro kii madaxa la soo kacba qoorta in laga jaro haddana waxaan ku haynaa 27 years oo TC muu dhaafin TC ka hor xabada u soo aruursateen oo aadisheen ilaahay subxaanahu wa ta'ala waan kala xisaabtamaya oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala qof aad nafta ka jartay ama aad kow kaga siisay ama aad without no reason asagoon waxba geysanin aad u disheen horta ilaahay subxaanahu wa ta'ala idinka ayaaba u noqonayaba faraskiisii oo idinka ayaa aakhira meel xun ku dambeynaya laakiin dawladda waxaan leenahay si aan idin aamino oo dawladdii hore aad different uga noqotaan oo kuwii horena soo maray dhan different uga noqotaan qoladii wiilkaayo ka dhalinyarada dishay banaanka ha noo soo dhigaan ha soo dhigaan ha la dilo ha la xiro wax la yaqaan oo cad ha la sameeyo laakiin sheeko ku dhamaanaysa accident ma jirto because accident inta hadda dawladda ku jirta iyo inta soo rajaynaysa inay dawladda u maato oo dhalinyaro oo ku dhalatay dibadahan oo carruurtayadu ka mid tahay accident bay ku dhimataa lagu dhamaynaya markii la ogaado inay ka aqoon rooyin ama ka tafsan yihiin ama ka qiimo badan yihiin ama taraagaraynayaan inay yihiin wadani marka waxa weeye sheekada waxa lagu dhamaynaya oo it was accident marka accidentkii sheekada accidentka la soo yareeyo waxaan leenahay insha Allah bilmillahi kariim xooga ha saaraan dawladdu inay maanta sheekadan meel cad kaga soo haraan si aan u ogaano inay maxay tahay mar dambe ayna u dhicinin because haddii kale waxay ku dhamaa hadday ogaadaan laakiin dawladdan inay totally different tahay ama ay ka duwan tahay dawladii hore ama aysan qaadanaynin dheeldheel in dadka lagu laayo wallahi dadku back off bay sameynayaan waana iska bedelayaan sidoo hore laakiin haddii aan maxay tahay la dhaho oo accident bay ahayd accident looga haro Soomaaliya ay saasan inta noo hartayna ku dhamaanayna waliba dhalinyarada horeeya waxa loo sameeyay jar ah inay badaha isku guraan oo lacag laga bixiyo oo Soomaali kaleeta ay gateen oo kulligood badaha isku gureen oo dool la og yahay inay dagayso dhexdeeda loogu la og yahay meesha ay ku dagayso xataa ay saacada ay dagayso intii la saaray ayay badda ku wada rugmadeen waxaas waxay u arkaa anigu dagaal lagu la jiro dhalinyarada inay tahay because dhalinyaradii ayaa la rabaa waddanka in laga dhameeyo mid la shoot gareeyo mid la qarxiyo mid badda lagu guro meel aan dhalinyaro joogin waddan aan dhalinyaro lahayn dee cillu yaala afarta oday calulaha waaweyn oo meelaha taagan oo maxay tahay iska guranaya waddanka ma taqaana dhaqaalihiisina way iska dhimanayaan wayna iska dhamaanayaan ayagana shisheeyo un baa ka farmarooqsanayo marka waxaan oran lahaa dawladdan annagoo tacsi u dirayna faamilkiisa oo dhan wiilka uu ka geeriyooday annagoo tacsi u dirayna inta dareem kale iyo inta damiir kale iyo inta maxay tahay wadaniga ah ee maanta to sidaan u gubanayo aan uga xumaaday uga xun annagoo tacsi u dirayna qaasatan ilmihi yaraay uu ka tagay iyo xaaskiisa waxaan leenahay laakiin dawladdu waa inay wax cad oo la yaqaan sanadana tustaa waa inaan ogaanaa reasonkii wiilkan qolada dishay siday u dileen iyo maxay tahay ayagoo maxkamad la soo saaray oo ma taqaanaa si degdeg ah oo justice waa in loo sameeyaa waa inay justice lahaataa sheekadan iska soconaysa habeen iyo maalin oo aan dhamaanin oo Soomaalida sheekada iska soconaysa Soomaalida waa inay justice lahaataa waa in ay
naftu qaaymaheeda dadka waa in la baraa nafta qiimeeda waan ku faraxsanahay maanta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo kulli inay u taagnaayeen tacsidiisii waan ku faraxsanahay in madaxweynaheeni maanta uu ka soo tagay asagoo ku jira wadan kale shir uu dhaho okay I have to go waa wax farxad leh oo noo soo kordhay laakiin waxaan rabnaa sheekadan meel in la saaro si aan mar dambeeto ayna u dhicinin qof dambe oo dhalinyaro ah odayaasha hadday dhintaan wiilkan meeshu iga taabtay wallahi oo billahi tallahi oday inuuna iga taabteen because ubax yaro hadda soo baxay waa oo rabay wadankiisa inuu wax u qabto bush oh it was accident marka sheekadan accident ka ha dhamaato madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo dawladda maxay ta farmaajo iyo khayrow waxaan ka sugeynaa wax cad baan ka sugeynaa sheekadii wiilka yarka ah oo lagu koriyay qaxootiga oo maxay ta qaxootigii hooyadii silacaysa xariirta intay ku korisay haddana maxay ta idin qalbigiisa iyo niyadiisa galiyay jacayl u qabo wadankiisa oo imaaday oo ka soo qayb galay dawladii qoladii ka dishay iyo qoladii ka dambeysay investigation fiican waa in la sameeyaa waana in wax cad oo la yaqaano laga sameeyaa wax cad oo la yaqaano waa in laga sameeyaa oo aan aragno oo dadku ku wada qancaan oo dhalinyarada kale oo dawladda ku jirta ay ku degto miirkood ku dego haddii kale ayaga laftirkooda waxay isleeyihiin habeen dambaa lagu shuud garaynaya ayaga laftirkooda kii wax bartay oo cilmi lahaa oo caqli lahaa oo maskax lahaa xataa wadankii imaan mayo wuu baqaya wuxuu leeyahay oo accident waayaa lagu dhahaa intii lagu dilo sidii shalay wiilkaas loogu sameeyaa lagugu sameynaya marka dawladda waxaan leenahay insha allah bilmillahi karim ilaahay haydin la galab garo hawsha aad haysaan laakiin waxaan codsanaynaa tan inay meel cad ka soo harto waxaan codsanaynaa inaan ogaano arrintan meesha ku dhamaatay waxaan codsanaynaa idinkana idin fiican runtii idin fiican in dhalinyaradaas wiilka dhalinyarada yarta ah ee ubax wadanka u soo koraya ah ee maskaxda laga toogto oo la yiri oo accident bay ahayd wixii dilay in la soo saaro maxkamad oo aragno oo la xukumo oo aan mar dambe accident dambana ayna dhicinin sidii aad u lahaydeen waxaan adkaynaynaa nabadda wadanka safety-ga na xooga inaad saartaan because waa haddii dhalinyarada la ugaarto dhalinyaradina awalba la baabi'iyey oo 27 years oo lasoo baabi'inaya 27 years lasoo baaba'sanayay haddana waxay noqonaysaa sanadkan dhalinyarada ayaa ku badan dawladda saan maqalnay marka intii ku jirtay dawladda ayaa la rabaa in la dhammaystiro taana ma yeeli karno wiilkan annaga dhanuna taabtay niyad xumu nagu riday wallahi calool xumu nagu riday wallahi markii la iiga sheekeeyey weliba hooyadii silca ay ku korisay la iiga sheekeeyey wallahi waan qalbi xumaaday waan niyad xumaaday wallahi waan niyad xumaaday because I've been there hooyaday say ugu soo korisay waan ogahay at the same time hooya qaxooti ku korsatay ilmo yar yar Soomaaliya dawlad jirtay caadi ahayd hooyaday say ugu korsay aabalahan aan ogahay qaxooti hooyo ilmo ku korsatay oo kaligeed la dhacdhacaysa curadkeedi maanta taxamar intay wax u bartay oo yiri wadankayga baan caawinaya in la xamar dhaxaysa dhush lagu siiyo la dhaho oo Allah u naxariisto TC baa gashay TC way gashay maalintaas maalin ka dambaysa muu dhinteen laakiin TC idinkaa soo dhaweeyay waxaa samaysan xabadahan meel kasta lala ordaay iyo dadkaan meel walba la dilaayo oo maligi ka soo kamaray hal la qabto haddaad rabtaan dawlad sax ah inaad noqotaan hal la qabto walaalayaal dhamaantiin waan saari amaale aadan kuu salaamay abaay macaan aad u maasan tahay tiiraanyada wiilkaas ay soo gelisay waliba hooyadiis iyo familigiisa ayaan aad ugu maartay reality waxay taabanaysaa dhibaatada inta badan waa maamada iyo maxay tahay iyo familiga marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan uga baryaa ayagana ilaahay waxaan uga baryayaa inuu qalbigooda u adkeeyo kuwa dambe oo walaalihiisana ilaahay waxaan ka baryayaa maamada inay bedel khayr qabo uu uga dhigo awlaadiisana ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha u xafido iyo familkiisii ilaahay waxaan ka baryayaa inaga dhan inta islaam oo wax garanayso oo damiir leh oo ku jiro wax yar oo xoogaa xataa caqli ah oo jaceelka wadankooda uu ku jiroona ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha ka siiyo maxay tahay samri iimaan laakiin waxaan oran lahaa dawladdu sanadkan si annaga dhanba qalbiga noogu dego wax cad ha keenaan quick investigation ha la sameeyo tiirkan ha la soo saaro nimankii dilay wiilka yarka ah wallahi ninkaas yarka dhalinyarada nimankii dilay tiirka la soo saaro haday u dileen maxay tahay because of inay booskiisa qaataan haday u dileen because of inay maxay tahay si kale whatever ay u dileen banaanka la soo saaro si umada kale tan ay qalbigooda u dago nin dhalinyaro oo dambana aan loo dilin intaasaan kaga baxayna maantii Soomaali Maxamed meel kasto aad joogtaan waan salaamaya walaalayaal waa walaashiin midnimo jeejay waxaan u soo galo kaliya inaan tacsidaasna diro waana ka xumahay aad bay ii taabatay hooyo baan ahay hooyo maanta 20 jirkeedii uu soo kacay la toogtay ولا دريمايا والله إلهي فامل كاسنا إلهي سبحانه وتعالى وحن كبريا إلهي إنه قلبي جود أو أكي أو أدجيو أو صبر إيمان كسيو والكودي أيام ليها إلهي تاسن وكبريا إذن كان إن شاء الله مسج كاسيكا جود بيا
quick baan kusoo galay intaas baan rabay inaan iraahdo Soomaali Maxamedna intii wax garada Ilaahay samraha ka siiyo asagana qabrigiisa Allah u nuuriyo subhanahu wa ta'ala walaalayaal waxaan kaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh